بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد قلبت وحن شركة جرايد أقبلني إن وربحين كديبنو حالة أبارها سيدو كلا وحدين عيقة تاجن وأقوه اللي شركة جرايد مانتا قديجا قرمت كأبارها لوح الساري إن كشقيان برمشة أبارها أو ككوبن علومو xubno ka socda bulshada rayidka dad ka socda ganacsatada oo inay u gurmadaan dadkooda loogu talagalay. Waxaan marka hore u mahadcelinayaa dadka Soomaaliyeed ee gurmadkaas nagala qayb qaatay, gaar ahaan bahda saxaafadda oo meel kasta oo tagno iyo howlaha gurmadka tabinteeda ka qayb qaadanaysay. Ayaan u mahadcelinaynaa. Sidaa la socotaan dadka ay abaaraha saameeyeen, abaaruhu waxay ka imaadeen 4 xilli roobaad oo baaqday iyo midka soo socda oo deyrta ah oo rajo badan oo runtii saadaasha xaggeeda hawada markii la yiraahdo cimilada aysan ka jirin waxay keentay in 7 milyan iyo 100,000 oo qofood oo Soomaali ah ay abaartu ay saameyso oo 5 milyan oo kamid ah dadkaas xaalad degdeg ah ay ku jiraan 300,000 oo kamid ah xaalad macluul ah hadda ay la tacaalayaan. waa abaar aad u daran, waxaa la yiraahdaa waa 40 sano abaar aan dhicin dalka oo kale waaye. marka annaga dadaalka aan wadnay iyo gurmadka guddiga gurmadka abaaraha waxay ahayd inaan dadka Soomaaliyeed u weydiino inay dadkooda gargaaraan. howlo badan ayaa runtii aan dhaqaajinay oo ay ka mid tahay inaan tagnay meelihii dhibaatada ka jirtay indhaheenna ku soo aragnay, adduunkii aan Soomaalidii deeq u weydiinay oo hadda ay soo bilaabatay inay dowlado badan deeqaha ay soo bilaabaan, qaarna ay deeqihii hore u bixi jireen ay kordhiyaan oo qaarna ay haddeertaan soo diraan wufuud oo ay maalmaha ama usbuucyada soo socdo ay dalka ku imaan doonaan si xaaladda ugu kurgalaan. taas waxay ahayd inaan indhaha ku soo jeedino beesha caalamka iyo dadka samafalayaasha ah inay gargaar u fidiyaan dadka Soomaaliyeed oo abaartu ay saameysay ay dhibaatada u geysay. sidoo kale waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed naftooda inaan ku soo jeedino indhaha dadkooda tabaalaysan annagoo ka faa'iideysanayna munaasabadda toddobaadka xorriyadda sidoo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka sheegay mudane xasan sheekh maxamuud in la yareeyo oo xoogga loo jiheeyo dhinaca gurmadka abaaraha. taas annagoo raacayna runtii waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed in ay munaasabaddan xorriyadda iyo munaasabadda ciid al-adha iyadoo laga faa'iideysanayo oo 10kii koowaad ee 10kii beriha ilaahay uu sheegay inay ugu fadli badan yihiin maalmaha ay nagu soo fud leedahay inay walaalahood ay kaalmeeyaan oo ay dhibaatada la qaybsadaan dadka kale ee mashaahiirta la yiraahdo ama caanka ah, hadday yihiin saxaafad, hadday yihiin siyaasiyiin, hadday yihiin dadka isboortiga, hadday yihiin fanaaniin, hadday yihiin culummo, kulli in qof kasta oo saameyn leh oo bulshada saameyn ku leh inay gurmadkaas nagala soo qayb gasho ayaan doonaynaa. waxaan baahi doonaa mar dhow hadduu ilaah yiraahdo oo telefishinada qalabka warbaahinta kuwooda caadiga iyo kuwooda baraha bulshada iyo websaydyada kulli aan ku baahi doonaa abiil ama dalab aan dadka Soomaaliyeed u jeedi doono. waxaa ku qoran dalabkaas nambarada accountnada lagu soo shubayo lacagta gurmadka. guddigan oo hadda xubno kamid ah igala joogaan maamuli doona oo annagana aan la shaqay doono oon la socon doono xaalkooda. waxaan rabnaa maamul goboleedyada sidoo kale guddiyo qaar ah dhistay oo heer maamul goboleed oo ganacsato iyo bulsho iyo rayid iyo culamo isku jira kuwa aan dhisanin inay guddiyadaas dhisaan oo aan guddiyadaas heerka gobol iyo midkaan hadda caasimadda ee federaal ay ka wada shaqeeyaan gurmadka ka yimaada dadka Soomaaliyeed in la gaarsiiyo. Soomaalida inay isku gurmataan rabnaa. adduunka gurmadkiisii waan ku maqannahay, dadaaladiisii way socdaan, way soo bilowdeen. qaaraa kordhiisaan sheegnay mucaawanada, qaaraa soo socda, qaar kale meelahooda ugu tagi doonaa, waa u safri doonaa hadduu ilaah yiraahdo oo xafiiska ergeyga dadaaladaas uu qaadi doonaa in adduunka aan soo jeedino. Soomaalidana waxaa la rabaa inay soo jeesida adduunka u soo jeestay